السلام عليكم وصاحبكين منير جانك داونيسان waa منير مرسي maanta waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan ana sidoo kale alxamdulillah waa caafimaad qaba ilaahay hanoo ziyaadin macadiisa maanta waxaan ka hadli doonaa qiso gaaban oo dhab ah waxay ku dhacday qisadan qoyska amiin qoyskiisa waxay soo aadeen safarkii fasaxa yani xilliga samarka fasaxa la aado amiin iyo qoyskiisa baabuur ay soo qaateen wadada ay soo qabsadeen wadadii intii lagu soo guda jiray amiin xaaskiisa waxay aragtay hooyo maskiina oo wadada iyo hooyo maskiina ay cunugeeda isla fadhiyaan wadada dhinaceeda amiin xaaskiisa amiin waxay ka codsatay inuu gaari u istaajiyo si ay u degto una soo caabiso hooyada iyo cunugeeda yar ee wadada fadhiyaan amiin wuu diiday wuxuu yiri aniga gaariga xabaara saraan ku wada man istaajin karo safarkan waa ka daaheena naga dhaaf amiin gaariga ayuu sii waday mar labaad amiin xaaskiisa way u dul qaadan weysay oo mar kale ay gadaal inta u fiirisay waxa u cuntami weysay inay sii dhaafaan hooyada maskiinta ah ayagoo caabin oo wax sadaqa siin amiin xaaskiisa mar kale waxay ka codsatay amiin inuu gaariga istaajiyo si ay u soo caabiso hooyada maskiinta ay gabadheeda yar xaaskiisa markay ku adkaysatay in gaariga uu istaajiyo aysan dhaafin hooyada maskiinta ay cunugteeda gaarigii ayuu gadaal u soo qaaday meeshii hooyadii fadhisay iyo cunugteeda ayuu markaa gaarigii ku istaajiyay amiin xaaskiisa waxay aad ugu saamowday hooyada maskiinta iyo cunugeeda oo markaa fiiriga ama laamiga dhinaciisa fadhiya xogaa lacag ay soo siisay sadaqo ay soo siisay xogaa yar ay soo sheekaysay way ka soo dhaqaaqday gaarigay soo koreen way soo bixeen wadadii ay soo qabsadeen wadadii intay ku soo jireen amiin ayaa hurdo qabatay marka amiin hurdo ayaa qabatay asoo gaarigii wada wadadii ay ku jiraan amiin marka hurdo yara qabatay kadib telefonkiisa ayaa soo dhacay telefonkiisa markuu soo dhacay amiin wuu qeyliyay Allahu akbar subhanallah ayuu yiri ilaan hurdo ka soo kacay asoo gaariga wada telefonka haduu fiiriyay waa numberka xaaskiisa uu la hadlay markaas waxa la hadashay oo telefonka ka qabatay ama telefonka soo dirtay hooyadii maskiinta ahayd markii uu la hadlay waxay tiri telefonka xaaskaaga uu ka dhacay kadib saasan ku soo wacay markaas amiin uu si takbiirsaday Allahu akbar alxamdulillah subhanallah ayuu yiri xaaskiisa waxay weydiisay war maxaa ku dhacay wuxuu yiri telefonka gaariga intaan waday ayaan hurdooday oo hurdo qabatay hurdadii markay saas ay qabato wax yar kadib telefonkaaga ayaa ii soo dhacay markaan qantayna gabadhii maskiinta naagtii maskiinta ahayd ila hadashay waxay igu tiri telefonka xaaskaaga way ka tagtay ee soo doon markaas waxay tiri xaaska ma sha Allah alxamdulillah maanta sadaqaana badbaadisay hooyada maskiinta sababteeda ayaan ku badbaadnay markaas baaburkay soo celiyeen hooyadii maskiinta ku soo laabteen telefonkii ka soo qaadeen xogaas oo kale oo mahad celin iyo sadaqa kalena ugu soo dareen sidii hadana safarkooda ku soo galeen markii qisada waxaan ka faa'iideysanaynaa sadaqada inay cajiib tahay sadaqada in ilaahay kugu badbaadinayo in dambigaaga lagu dhaafayo in dhibaato kugu soo socotay ilaahay kaaga xijaabayo sida hadda qoyskan amiin ay kaga badbaadeen shilka gaariga hadii ay sadaqadii ay bixiyeen aysan ahaan lahayn yani ilaahay wuu awoodaa sabab kasta inuu kugu badbaadiyo telefonka hooyada ama xaaska amiin ayaa sabab u noqotay qoyska amiin inay ku badbaadaan gaariga waxa saarnaayeen amiin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ilaaha ku badbaadiyay sadaqada ay baxsatay xaaskiisa sababteeda marka sadaqada yaan la yareysanin naxariistana hal ugu dadaalo in la isku naxariisto dadka masaakiinta iyo fuqarada in loo naxariisto hadii la isku naxariisan waayo ilaahay nooma naxariisanayo hadda yarka ama hooyada qoyska amiin xaaska amiin hadaysan sadaqadaas baxsan lahayn ku adkeysan lahayn inay wax sadaqaysato oo ida maskiinta iyo cunugeeda ay caawiso ma badbaadi lahayn oo shilkaas ay ku dhiman lahaayeen laakiin maadaama ay sadaqada ilaahay dartiisa u baxsatay oo qoyskaas iyo hooyada iyo cunugeeda yar ay caabisay oo sadaqa siisay ilaahay ayagana badalkii sadaqada ay isla markii siiyay wuxuu ka badbaadiyay shilka ay gali lahaayeen insha Allah aan ku dadaalno inaan sadaqada baxsano aan isku naxariisano midka waxaysta midkan waxaysan ha caawiyo halkaas ku soo gabagabeynaya muuqaalkayga iyo qisadii dhabta ahayd ee gaabneed insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heshay fadlan like saar muuqaalka hadii aad ka heshay asxaabtaada u dir si ay u ogaadaan faa'iidada iyo fadliga ay leedahay sadaqada u share garay WhatsApp Messenger meel walba ugu share garay muuqaalkan like saar sidoo kale hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar si ay ku soo gaaraan wax walba aan soo geliyo adoo gambaleyskana furanayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو صدقي سنة.